kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada shabakada codka Tolmon. Steve Warstein waa nin dhalasho ahaan ka soo jeeda Mareykanka. waxa uu tigidh dahabi ka iibsaday shirkadda duulimaadka Mareykanka kaasoo qiimihiisu ahaa $250,000. shirkadduna waxay u ogolaatay inuu ku safro darajada koowaad ee duulimaadyada si lacag la'aan ah inta uu nool yahay. ku darso waxa kale oo uu iibsaday tigidh la socda kii hore oo qiimihiisu yahay $150,000 sanadkii 1987. ma aysan ahayn shirkadda duulimaadka Mareykanku mid og in ay geli doonto khasaare aad u badan oo gaadhaya in ka badan $24 milyan oo dollarka Mareykanka, balse Steve waxa uu ahaa mid horeyba u qorsheeyay sababta uu iibsanayo tigidhka. ilaa lacagta uu bixiyay waqtiga ma ay ahayn mid ciyaar ah, sababtoo ah waxa uu ahaa mid og arrinta uu samaynayo inuu ka heli doono wax ka badan laban laab. Steve waxa uu khasaare aad u weyn u geystay shirkadda duulimaadyada Mareykanka sababtoo ah waxa uu booking gareystay in ka badan 10,000 duulimaad. mararka qaarkood waxa uu ahaa mid u safro kaliya inuu sandwich ka soo cuno maqaayad hebel ama inuu soo daawado ciyaar. waxa uu ahaa mid la safra derbi jiifyada si uu ugu celiyo dalalkoodii rasmiga ahaa. waxa uu ahaa inankiisu mid ka qayb gala munaasabadaha ciyaaraha dunida ka dhacaya. waxa kale oo Steve ahaa mid u safra Canada subaxnimada si uu ugu soo iibiyo xaaskiisa quraac, taas oo qiimaheedu ahaa $50 oo kaliya. waa uu keeni jiray kadibna qadada ka hor waxa uu ku laaban jiray diyaaradda. waxa uu ahaa mid xaaskiisa ku yiraahda, waxa aan saaka degdeg ku tegay Canada, xilli horena waan soo noqday. bishii July 2004 oo kaliya wadarta wadamada uu safray Steve waxay ahaayeen 18 dal. waxa uu had iyo jeer dhihi jiray, anigu waxaan awoodaa inaan aado meel walba xilli walba. waxa kaliya oo la iga baahan yahay waxa weeyaan inaan boorsada dharkayga xidhxidho oo madaarka aado. sanadkii 2008 ku dhowaad muddo 21 sano ah kadib, Steve waxa uu ahaa mid safray 10,000 oo duulimaad. waxa kale oo uu safray 10 milyan oo mayl. waxa uu helay 40 milyan oo dhibcood oo duulimaad, sababtoo ah 500 oo jeer waxa uu safray Ingiriiska, 70 jeer waxa uu safray Australia, 120 jeerna waxa uu safray Tokyo, Japan. sidaa daraaddeed khasaarihii uu geystay Steve shirkadda duulimaadka Mareykanku waxa uu ahaa mid ku dhow $21 milyan oo dollar. shirkaddu waxa ay go'aan ku gaadhay in ay joojiso tigidhkii dahabiga ahaa ee uu Steve haystay waddo walba. maalintii bishu ay ahayd 13 Diseembar 2008, Steve waxa uu tegay airportka si uu ula safro saaxiibkii sidii caadada ahayd, balse waxa uu ka war helay in tigidhkiisu noqday mid aan shaqaynayn. arrintaasi waxa ay ku noqotay shock weyn. Steve waxa uu go'aansaday inuu dacwad ku ogo shirkadda duulimaadyada Mareykanka. dacwadiisuna waxay ku qotomtay in ay shirkaddu sabab u noqotay burburinta noloshiisii deganeed kadib markii ay u diiday hobbigiisii uu jeclaa oo ahaa safarka. kadib markii uu dacwad ku ogay shirkadda taasoo samaysay inay burburiso ballankeedii, isagoo oo codsanaya in magdhow looga qaado shirkadda, taasoo sabab u ahayd murugo ku dhacday awgeed. maxkamadayn kadib waxa uu ku guulaystay kiiskiisii, waxaana uu magdhow u helay lacag gaadhaysa $3 milyan oo dollar iyo in dib loogu soo celiyo tigidhkiisii lacag la'aanta ahaa, kaasoo ay maxkamaddu ka dhigtay mid shaqaynaya inta uu nool yahay.